dhammaanteen waxaa farxad weyn inoo ah inuu maanta inoo soo dhammaaday ilaahay idankii shaqadaa maanta aan hayno uu ku dhammaanayo jidkii u dhexeeyey Dila Boorama jidkaasoo ka koobnaa 24 kiiloomitir 8 kiiloomitir ee ugu horreeyey waxa fangareeyey mujtamaca ku nool Boorama kambaniyada waaweyn qaar ka mid ah kambaniyada waaweyn ee Somaliland iyo qulbijooga 16 kiiloomitir ee ka dambeeyey oo kaan maanta gacanta ku hayneen gabagabeynayno ku jiro waxa bixisay xukuumadda madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweyne ku-xigeenka ka yahay Cabdiraxmaan Saylici runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay waajibkiina waad gudateen ballanqaadkii bulshada aad u qaateenna waad fuliseen waxaan rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka ee baynagu daro intii ka soo shaqaysay waxaan rajaynaynaa inuu mujtamaca anfaco dariiqa wada tiino dhibaatada badan uu ku hayay mujtamaca lama balay karo dadku markay dila soo gaaraan ayay niyad jabi jireen intay dila ku yimaadiin dila iyo Hargeysa inta u dhaxaysa intuu socodku ka qaato wuxuu ka qaadanayay inta u dhaxaysa Dila Boorama oo ahayd 24 kiiloomitir runtii dhibaato badan baa lagu qabay waxa mahad weyn leh Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mashruuca khayrigeena waafajiyay inoo sakhiray inoo khatimay mahadiisa ma koobi karayno Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu kuwan iyo kuwa kalaba oo Ilaahay idankii inoo sakhiro khayr badan baan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa xukuumadeennuna maanta horumarka oo soo jeedaa khaasatan dariiqyaduna waa halbowlaha nolosha runtii odayaal badan baa ag jooga waxaan hadalkii ku soo koobayaa maanta mashruucii Dila Boorama halkaas uu inoogu khatimay Ilaahay mid kale oo khayr badan haddana gacanteena mahad weyn u celinaynaa wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Xirsi Cali Xaaji oo runtii wasiirka dariiqyada iyo mashaariicda noocaani ay hoos tagaan يعني kaalinta mugale ninkaasi ka qaatay ilaahayna uu og yahay anaguna waan ognahay shaahid waxaanu ka nahay يعني ixtiraamka uu nasiinayay markaanu mashruuca uu la tagno iyo mar walba hawshaas sidoo noo garab taagnaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa khayr badanna ilaahay xaqiisa ugu rajaynay sidoo gudoomiye sheegay maxaan noo soo dhameystiray maanta dariiqii maxaan ku raxway Dila Boorama oo hawsha maanta socota insha Allah ta'ala ay ku gabagaboobi doonto runtii ma noqon doonto maxaan ku raxway ugu dambeeyay ee ururka Sarda uu qabto hawlo fara badan ayaa na sugaya oo runtii maxaan ku baahan in wax laga qabto oo dhinacyo badan taabanaya bacda Allah subhanahu wa ta'ala ma hadda ilaahay dabadeed waxaan mahad gaar u soo jeedinaynaa xukuumadda Somaliland ee madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyo runtii cid kasta oo maxaan ku raxweeye dariiqan wax ka qayb qaadatay dariiqaas sidoo gudoomiye sheegay waxa weeye intuu ka koobnaa waa la sheegay anigu waxaan maxaan ku raxweeye kelmad kale ku darayaa horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala maxaan ku raxweeye ha ka siiyo maxaan ku raxweeye abaalkiisa qof kasta dariiq wax ku darsaday kii dhagax maalin ka qaaday maxaan ku raxweeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay abaalkiisa ka siiyo waxaan saydin leeyahay hawsha maxaan ku raxweeye dariiqyadu waa fara badan yihiin cid kasta oo halkan maxaan ku raxweeye wanaag iyo sharaf kula baxdayna way idin sugaysaa intii in la mid ah inaad ka sii badisaana waanu jecelahay waxaanu maxaan ku aad iyo aad idinku gobaadinaynaa oo maxaan ku raxweeye aanu idinku maxaan ku dhiiri gelinaynaa sida wanaagsan maanta maxaan ku xataa dadkii la xijaclay bay barteen haddii maanta dariiqa dhagax weyn uu yaallo gaariga ugu horeeya joogsanaya oo dariiqi ka qaadaya iyaduna waa sharaf waxaan leenahay markaa maxaan ku raxweeye dariiqyo fara badan iyo maxaan ku dadaal fara badan waa jira ha loo diyaar garoobo cid kasta oo maxaan ku raxweeye wax kula baxday dariiqana ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ka abaal marinayna annagu haddaan asardnahayna xilkii ay ummaddu noo egmatay aanu annagu waliba maxaan ku runtii isxil saarnay markii ugu horeysay waxa weeye waxaan isleeyahay ururka Sarda uu ka soo baxay ilaahay baana subxaanahu wa ta'ala mahad ku leh waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baryaynaa inta kale ee wanaagana in ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo dhameystiro dhamaantiina waad nala maxaan ku raxay garab taagnaydeen hiil iyo hooba in laaliintiina la garab taagnayd intii ka maqnaydeen horan aan hiil iyo hool noore ag istaagno waxaan jecelnahay inay qaybaha dambe insha Allah ta'ala nala ag istaagaan ururka Sardana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu ka sugayaa wixii wanaagiisa oo xagga Allah yaan wax dhigana annagu maxaan ku raxweeye adduun halkan kama qaadano taayada ayaanu ku bixinaa taasna waa sharaf runtii maxaan ku Sarda gaar ahaan uu leeyahay dhalinyaro iyo maxaan ku waayeelba inta ururku ka kooban yahay marka waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala markaad codkayga maqashaan inaad noo soo ducaysaan oo aad noogu ducaysaan wanaag iyo sharaftii aanu idinka dul qaadnay
aanu dhamaystiri lahayn waanad mahadsantihiin wassalaamu calaykum asarda laakiin yar baan ku darayaa qolada heesta waxay odhan jirtay ku kala mooye kan galbay marka kan waa naga galbado waa naga dhamaaday alxamdulilah ma haddana waa kay asarda sheegtay waxay iskale xukuumadda maanta jirta iyo dhammaan wixii gacan ka geystay dabadiyo gudaba laakiin waxa meesha taagan hawshan hadday dhammaatay yurub iyo ameerika wal qurxiyaa la yidhi waxa qurxiyey dawladda iyo dadka iska leh haddii dadkii kaco oo uu isla istaago waddankooda inuu qurxiyo xukuumaddiina maanta ogoshahay boqolkiiba boqol inay garab qabato dadkii hadda jaaniskii ilaahay laga doonayay maantuu taagan yahay marka waxaan leeyahay horta dadweynaha idinku dawladdiinnii isgarab taaga oo waxaad isku garab taagtaan qaadhaan iyadiina waabay u taagan tahayba in waddankii ay qurxiso oo ay wax ka qabato waa ka go'an tahay dee ilaahay baa laga helaa ma garanaysaa in dawladdiina maanta diyaar la tahay dadweynihiina u taagan yihiin meesha maanta noo hadhay ee aan doonayno asarda haddana inaan wax ka qabannana waa laba waddo qaybtan aan samaynay oo dila boorama ah dila kala baydh waa go'an tahay iyado oo waxay rabtaa in lagu noqdo waa qodobka labaad waxaan ku ballansanahay xukuumadda somalilan jidkii boorama low yacdo inay dhagax dhigto ballankaa madaxda u sarraysa ayaa noo qaaday waa aanan ka sugaynaa imikana furitaanka ilaahay waa iidankii waxaan u rajaynaynaa maanta hadduu inaga dhammaaday dee waa imanayaanu waa sugaynaa xukuumaddeenna dadweynahana waxaan u sheegaynaa in ballankaasi jiro iyagana waxaan u sheegaynaa hawshii ay noo idmadeen inaan dhammaynay oo ballankii ka dambeeyey aan ka sugaynay dhinaca loo dhaqaaqayo talo iyo ma garanaysaa toosinba marka hawshii horena halkaasay ku intihootay hawsha aan maanta fuuturka filaynaana wataa ilaahayna xukuumad khayr qabto maanta ina siiyey oo madaxweyne axmed maxamuud maxamed siiraayo hogaaminayo wasiirka madaxtooyaduna runtii waa nin boqol u dhigma oo ma garanaysaa kartina leh ma garanaysaa qalbi wanaagsanna haya diina leh kolkaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo aan ku kalsoonnahay jidadkaa kii loo dhaqaaqaba sida kaasi u galbada inuu galban doono marka kaa horan mahadcelintaasaan ka bixinay wixii waraasada haysaana wakaa والسلام عليكم waxay soo qadilay wakilmada ka digay saaxiibaday inaan halka ku daro labada kelmad waxa weeyaan maalinta jidka bilaabayna 24 kilomitir maanta ka hadlayno kilomitirka ugu dambeeyay wax shilin ah ama wax qalab ah ama wax agab haba yaraatay lahayd ma jiro waxa lagu bilaabay tala saarasho la tala saartay ilaahay tala saarasho ilaahay tala saarana ilaahay uu noo dhabeeyay oo noo guuleeyay oo dhammaadkii baanu joognaa waxaanu bilownay bishii afraad 2017 waanu bilownay oo maxay ahayd waxaanu maxay laami maahayn laakiinse laamiga waxaanu bilownay 2017 bishii afraad maantana waa bishii labaad 22 2014 horta maanu shaqayn oo qalab iyo waxbaanu ku maqnayn laakiin 2 sano iyo bar bay noqonaysaa intaas waxaan inteedii badnayd dad waxaanu numar ku tashaynay gacanta maxayda community-ga awdaysa laakiinse dawladdan magaranaysan barakaysan ay noo dhalatay ee tii hore ay nooga dambaysay ee uu madaxweynaheena axmed maxamuud axmed siilaayo ka madax yahay ayaa dhammaystirtay 16 kilomitir kii ugu dambeeyeyna waa naga maanta awdayseen waxaan ka cadaynayaa inay maanta ka hor ay 4 dal ay jaar lahaayeen Soomaaliland Ethiopia Yemen iyo Djibouti afarta waddan way ka xidhay wax dariiqo isku xidhay ma jiro hal dariiq baa maanta dhamaanaya oo Soomaaliya inagu xidhaya kii Hargeysada madaxdu joogto inagu xidhaya ayaa maanta dhamaada waxaynu u diyaar garoobaynaa haddaynu awdaysannahay inaynu Djibouti iyo Ethiopia iyo Yemen isku xidho Yemen dekad baa inagu xidhaysa labada kan waxay nagu xidhay wadda laamiya Ethiopia ma hadhow halkuu noogu yimaadeen waa soo wadnaa bay yiraahdeenoo qaybteedii baanu ku daraynaa marka anagu xagay wax ka soo bixino ayaa ku soo xidhaysa mar wadadayada kale waxay nooga fadhiyeen intii dawladihii soo gaarsiiyaan rootan ku soo xidhan marka maxay noo fadhiyaa taa hadday ballan qaaday Etoobiyadii dawladda ay dhisayso waxay noo fadhiyaa oo la inooga fadhiyaa reer awdal iyo reer Sanaal maxay saqiil iyo kabiir ku dibad jooga iyo ku dal jooga jidkii maxay hayday low yacado iyo boormaynu isku xidho waxaan qabaa
haddaan ilaahay tala saarano sidaa uu inoogu dhib yareeyey inuu inooga dhib yarayn doono oon si fudud ku dhammaystanayno oon magaranaysaa ku xidhmayno markaa 3 dal ta afraadna hartaa waa inoo waddo oo 4 waddan jaarka lahayn markaan isku xidhno dee dhaqaaluhu kobci dhallinyaraduna way wada guursani dalkuna wuu barwaaqoobi marka waa inaan muruqeenna iyo maalkeenna iyo maskaxdeenna aynu mid ka dhignaa walaalahayga halkan gacanta ka geystay madaxweyne ku-xigeenka xirsi xaaji cali waxaan maxay saaxiibada u mahadnaqay anna mahad intaa in leeg baan u gudbinayaa ummadda reer Somaliland iyo ummadda reer Awdal iyo reer Sana'a waxaan leeyahay warjidkii dheeraa ayaa haree ku diyaar garooba 24 kiiloomitir ah ee isku xidheeyay Boorama oo maalintii u dambeysay aad khadmay waa alxamdulillah ilaahay loogu mahadno 4 maalmood ka hor waxaan ku soo maray isagoo aad rafaada maantana waad arkaysaan waxa lagu shubayo ciidii jidka sida odayaashu u yiraahdeen ba hawl ka geysatay waa sadaqa tijaariya saddexdii nabigu sheegay ku jirtaa waa sadaqa tijaariya u socotay isaga u socotaa haday xukuumad tahay iyo hadii ay cid kale tahay ba cidii ka qaadatay غير wax ka qaatay ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka aakhirada ha ugu kordhiyo anigoo u dhaafay inta waxaan ka wakiilahay hadda kaliya maanta ka jooga qurba jooga meel kasta ha joogan Afrika Aasiya Amerika iyo Asia meel kasta ha joogan marka waxaan anigu u baaqayaa maadaama la dhagax dhigayo dariiqi isku xidhay Boorama iyo Looyacade dadka reer Somaliland ee ku nool qurbaha hadda maanta anigu wakiilkaan kaliya ka joogo meel kasta ay joogaan inay u guntadaan oo guntiga dhiisa iska dhigaan dumar khayr qabaan leena anaga oo aad ugu fiican wax gurida raguna aad bay u dadaalaan aad bay waxa khayraadka ugu fiican yihiin maad maqasheen mar kasta in maaragtay TV-yada lacagaha laga bixiyo dadkaas u badan yihiin ee dadka masaakiinta quudiya tanna waa sadaqatul jaariya oo wadanku ku dhoolaanayo ninku dhagax halka dhigay isaga buu yaalaa maalinta qiyaamaha kolka waxaan ku boorinayaa walaalahayga qurbaha joogan anigu wakiil ka ahay meel kasta ay joogaanba inay u diyaar galoobaan siday qayb libaax saa walba uga qaadan jireen qayb libaax siday uga qaadan lahaayeen inay rag iyo dumarba u diyaar galoobaan oo nin walba ku tala galo oo la sugo kaliya dhagax dhigida madaxweynuhu oo dhagax inoo dhigayo dawladana waanu mahadnaqaynaa sida ay sheegtay asardaba wax weyn bay qabatay dawladda Soomaaliland maanta wax weyn bay dariiqa ka qabatay waan mahadnaqaynaa ilaahay hortiisana way la tagayaan waana mas'uuliyad ay qaadeen waana mas'uuliyadda ummaddu ka sugaysay cid kasta oo dawlad waxa weeye xilkeeda qaadayna oo joogta muxuu ahaa waxa weeye xafiis ama maamul joogta waa laga rabaa ummadda inuu u fikiro marka waa mas'uuliyadka la isweydiin doono qofka mas'uulkiihi waxa la yiraahdaa waa qof ummaddu shaqaale u yahay ummaddu u shaqeeya madaxweynaha ka soo bilow ilaa xafiiska u hooseeya ka joogay waa shaqaale ummadad weey ummaddu inay la xisaabtanto oo maxaad noo qabata ay tiraahdo ilaahayna uu la xisaabtami amaama Allah iyo amaama naas xisaabba sugaysa marka qof walba inuu xisaabta sugay la xisaabtami doono inuu waxa weey sidoo uga bixi lahaa oo ka fikiro u dadaalo way ummadiisa marka runtii waxa weey maanta waxay aan rabnaa inaan u ducayno kaliya hawsha inoo dhammaystirantay raggii qabtay ilaahay ha barakeeyo dawladdii garab gashay oo ku saaciday oo ku kaalmaysay oo niyadda u dajisay oo waxa weeye maartay dhiirinada siisay oo ballankeedii ka soo baxdana ilaahay ha barakeeyaan iyadana dhammaan shacbigii iyaguna wadada qayb ka qaatay Allah barakeeyo maalkooda Allah barakeeyo cidii wax ku bixisay cimrigooda Allah barakeeyo amalkooda Allah ka aqbalo awlaadooda Allah barakeeyo inay ummadda wax u qabtaan ay sida iyo si ka sii badan u sii qabtaan ilaahay waafajiyo aad iyo aad baad ma santihiin